gudoomiyaha siyaasadeedka Curad Cabdirashiid Xasan Mataan ayaa ka hadlay kulan saaka ku dhexmaray qasriga madaxtooyada Soomaaliland qaar kamid ah gudoomiyaasha ururada iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaanu sheegay in gabi ahaanba loo yeedhin ururka gudoomiyaha ka yahay Curad intaasi waxa uu ku daray isagoo hadalkiisa sii wata in mas'uuliyiinta ururadu haddii ay taageerayaan xukuumadda oo aanay ahayn siyaasad cusub ay mudan tahay inay ku biiraan xisbiga talada dalka haya kulmiye isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisu waxay u dhignaayeen sidan anigoo ah gudoomiyaha urur siyaasadeedka Curad waxaan halkan ka sheegayaa kulanka maanta warbaahinta soo galay ee madaxtooyada looga yeeray urur siyaasadeedka qaarkood inaan anagu qayb ka ahayn yarmada mid labaad urur ahaan waxaanu aaminsanahay in aanu ka siyaasad wanahay xisbiyada haday tahay xukuumadda iyo haday tahay kuwa mucaaradka waana sababta kaliftay inaanu sameeyno urur siyaasadeed cusub oo aanu rabno inuu la yimaado siyaasad cusub oo ay hormood ka noqdaan jiilka hadii la yiraahdo u jeeyay dalka jiha cusub waxa kale oo qabnaa ururada maanta ay madaxtooyadu galbisay inta badan xafladooda xaq hore ay fadhiyaan kaadirka kulmiye maantana loo yeeray hadii aanay ka siyaasad duwaneyn oo aanay isku siyaasad yihiin wax la qaatay in taageerada xisbiga kulmiye adkeeyaan ee aanay ururada dadka ku dawaqinin taasna qodobka labaad ee qabno qodobka saddexaad ee halka ka cadeynaa waxa weeye annaga cid maanta xiriir naga dhaxeeya waa gudiga diiwaangelintana waa la magacaabay ururadiina way furmeen shaqadoodiina way haystaan diiwaangelintiina way socotaa waxaananu leenahay qodobkayga afraad oo ah diiwaangelintaas soo socoto yaan wax carqalad lagu keenin